mudanayaasha barlamanka federaalka Soomaaliya oo maanta dib u celiyay miisaaniyada xukuumadda federaalka Soomaaliya gudoomiye Mursal oo ku dhawaaqayo janaalka Mustaf Doobiyo ka daawo doontaan mid kamid ah beelaha galmudug oo sheegay in la sameynayo odayaal wadato dowladda Soomaaliya isla markaasina mas'uuliyiintii iyo odayaasha dhaqameedkii beeshu ay lahayd kuwa aan ahayn la magacaabayo qodobadaasi oo dhan waxaa ku daawo doontaan janaalka Mustaf Doobiyo caawa qodobadaas inihaya balse daawade subscribe saar share gari asxaabtaada la wadaag sidoo kalena comment no rep like na saar waana ku maasantaa la jaanqaadka iyo la socodka warka u diyaar garow qodobadaasi oo faahfaahsan maanta magaalada Muqdisho ku yeesheen xubnaha baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa waxay kaga doodayeen aqrinta saddexaad ee miisaaniyada xukuumadda federaalka Soomaaliya waxaana kulanka gudoominayay gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya maxamed Mursal iyo ku-xigeenadiisa kulankaasi ayaa dood dheer kadib waxaa halkaasi ka bilaabatay gacantaag loo qaadayo soo gudbisay xukuumadda federaalka Soomaaliya iyadoona ugu dambeyntii ku dhawaaqay natiijada gudoomiye maxamed Mursal oo sheegay gebi ahaanba in dib loo celiyo mudanayaasha baarlamaanka cod dheer ku diiday maaliyadda xukuumadda federaalka Soomaaliya beela ayuu ka hor hadlay mudanayaasha baarlamaanka ayaa sheegay in ugu mahad celinayo hanaanka ugu doodeen iyo sidoo kale in ay diideen dibna loo eegayo miisaaniyadda ee xukuumadda soo gudbisay madan ay diideen mudanayaasha baarlamaanka Soomaaliya oo maanta miisaaniyada dowladda Soomaaliya gaar ahaan xukuumadda dib u celiyeen ayaa waxay ku dhaliileen in wax isdabamareen ay jirto isla markaasina ay habooneen in la meel mariyo miisaaniyadaas waxayna ku dhaliileen inay khiyaano qaran jirto taasina ay ugu wacan tahay in dib loo celiyo sidoo kalena wuxuu sheegeen qaar ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka in xatooyo ay ku jirto dowladda Soomaaliya gaar ahaan xukuumadda taasina ay ugu wacan tahay in laga badbaadiyo shacabka وسطي جناحتها مساكينة العقد اللي لسيوه هو إن بدل يقبض ودولة كذا حشي أياتها دولة ضد كذا عيسى أنولي معرض وحوين وأن كان قاهر دان الفلن وحيلم تهاي كورت كونتمت أنا ولا شو حلا وهاوس كونتمت مرة وأبسكون يعني دان ولا شروع ذا هي قراءة برلمان ugu dambeynna galmudug waxaa ka soo yeeraysa qeeldhan odayaasha dhaqanka ee soo xulay baarlamaanka galmudug uu yeelan doono waxayna sheegnay mid kamid ah beelaha galmudug oo maanta kulan ku yeeshay halkaasi waxay tilmaameen in dowladda Soomaaliya faragelin ku hayso isla markaasina odayaashii dhaqanka wax soo xuli lahaa ay wadaan dowladda kuwa kale oo xilka aan haynin inay magacaabaan isla markaasina liis ay soo gudbiyeen ay qaadan doonaan waxaana taasi farta ku fiiqeen wasiirka arrimaha gudaha ayadoona sheegeen inay taasi dhibaato ku tahay axmedmadoobe maamulkiisana lagu dhaliilayo haddana dowladda ka wato galmudug ra'iisul wasaaraha iyo gudoomiyaha baarlamaanka u sheegayna wasiirka arrimaha gudaha iyo guddiga doorashadu inay wadaan dhibkii kismaayo laga sheegayay oo ahaa in la bedelo odayaasha dhaqanka oo la keeno kuwa gacan ku samaysa oo lagu eedeynayay axmed madoobe wasiirka arrimaha gudaha wada ugaas cabdiraxmaan oo ah ugaaskii beesha 135 gudoomiyahoodii saxiixii galmudug ugaaskii ka abaha inay ku bedelayaan nin aan ugaas ahayn hadda ayagu keenay